مناسبات بلادان lagu daafurayay dhismaha cusbitaalka degmada Fuqufuliye hay'ad hospital oo laga bilaabay degmadaasi ayaa lagu qabtay magaalada Fuqufuliye munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen Sara Cabdulqaadir oo ka socotay qurba joogta deegaanka Fuqufuliye oo fuudka kala timi magaalooyinka Ceerigaabo iyo Damalaxagare madax dhaqameedka iyo waxgaradka degmada Fuqufuliye dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Sara Cabdulqaadir oo ka socotay qurba joogta deegaanka isla markaana faahfaahin ka bixisay ujeedada loo aasaasay cusbitaalkan iyo Kaysa Cabdi Cali oo qodax oo kamid ah aqoonyahanka reer Sanaag waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cusbitaalkii muddo 2 sano ah aan qayladaan ugu jirnay annaga qurba joogta iyo dal joogba maanta dhismihiisii uu bilowday cusbitaalka magaciisa حياة هوسبيتال حياة معناheedu kale waxa weeye nolosha marka waxaan raadinaynaa nolosha gabdhaha isku dhimanaya umusha ah marka magaca qiimo fara badan buu leeyahay kuwii dhowra cusbitaalka kuwii ilaashada kuwii maxay tool dhagaxa ka gura kuwii rinji mariya kuwii noqda xafladda tan qiimaha badan lihi waa daahfurkii cusbitaalkii degmada Fuqufuliye run ahaantii iyadoo arintaas ay hormuud ka ahaayeen jaaliyada deegaanka oo mashruuca kan khayriga ah run ahaantii gacmaha isugu geysay muruq iyo maal iyo maskax iyadoo aan meesha ka madhnayn dadweynaha deegaanku oo run ahaantii wixii dhinacooda u diyaaray inay hawsha ka qayb qaataan iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatayna waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgarad kale dhalinyaro iyo haweenka degmada Fuqufuliye oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweynayaan cusbitaalkan magaalada wax la dhisay 62kii inta bilaa cusbitaal bay ahayd hadii maanta ilaahay dad khayr qaba siiyay khayr Allah siiyo oo duceyn cusbitaalkaas waa loo baahnaa waa mid meesha ka dhinaa ilaahay khayr ha siiyo cidii soo abaabusayba cusbitaalku waa dhismayaa waana la wadaa waa ku guuleysanaynaa waxaan aad ismar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynaynaa cusbitaalka waad maqlaysaan odayada waxay yiraahdeen 62kii baa la bilaabay magaalada ilaa iyo waqtigaana waxa la qofka ku xanuunsada noocu doonaba waa la cararay maanta wax la oran karaa reer Fuqufuliye jaanis fiican oo ilaahay loogu mahadnaqo baa idin soo maray waxaan markaa loo baahan yahay kii aan wax ku darsan karayn inuu raali maskaxi ahaan raali uu ka ahaado kii wax ka badan ku darsan karaana uu ku darsado ururka haweenka waxay inoo bilaabeen horseed aad iyo aad u fiican iyagoo maanta halkan ku wareejiyay qadar lacageed oo ay ugu tala galeen cusbitaalka waxaan leeyahay jazakallahu khayran hadii aanu nahay ururka degmada Fuqufuliye dahab joog waxaanu wada Sara Cabdulqaadir guddoonsiinay lacag dhan 10 milyan annaga iyo ardayda dugsiga sare oo cusbitaalka ugu deeqnay cusbitaalka hooyada iyo dhalaanka soo dhaweeyna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu leenahay hambaliyo annaguna heegan baan nahay Yusuf Cabdi Casar Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo